الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. halkan waxaan ku qaban doonaa insha allahu saa horeba la socoteen xalqadii labaad ku saabsaneyd mawduuca uu magac darnay toogsiga telefishinada. waxaan filayaa dhowr beri baa kasoo wareegtay markaan muxaadaro hore qabanay, waana sheegnay insha allah inaan gaagaabi doono oo aanan ka dheerayn dooninin nus saac insha allah iyo wixii lamid ah. dhowr daqiiqo dhaftoo laga yaabo, laakiin nus saac aan soo doonaa insha allah. waa horaan u sheegnay si aan dadka u daalinin, mar walba kusoo celin doonaa. waxaa la dhahaa qofka halka saac ugu horeeya, qofka meesha uu fadhiisto hal saac ku dhagaysto uu ku caajisaa. waxay dhahaan 20 daqiiqo u horeysa kor buu soconayaa, 20 ku xigta daaldaal buu soo dareemayaa, 20 ku xigtana haanaansu bilaaya ay dheh. marka insha allah ma dheerayn doono. waxaan ka hadalnay waxay ahayd qaybtii hore kasoo hadalnay waxyaalaha aan magac darnay toogsiga telefishinada. waxaan ka hadalnay waxaan ma sadaqa mise waa dii alla ku ron yahay meesha beec baa ka dhacay. waxaan sheegnay sadaqada inay shuruuda leedahay, rabo in qofku la yimaado. midka qaadayana waxaan sheegnay in shuruuda leeyahay, oo rabo shuruudaas inuu kasoo baxo oo fiyo. waxyaalahan sheegnay waxaa kamid ahaa akhdaac badan oo dhacday, wadaadadii waxba loo soo jiiday haddii alla ku ron yahay wamaa ilaa dalik. waxaan ka hadalnay inay jiraan haddii alla ku ron yahay dad howlaha shaqo iyo waxaas ka dhigtay. sidaa daraaddeed qaybihii hore waxay iskaga badnayn hordhac waan filayaa asbuuc horeeto ama maalintii horeeto meeshaan fadhiisanay. insha allahu qodobada maanta ka hadli doonaa waxay noqon doonaa kolley ma wada dhamayn karno, laakiin xanxinin qaar baan ka tegi doonaa insha allahu. kow waxaan sheegi doonaa in camal laga dhigtay waxaan, bal in camal laga dhigto oo qofku arsaaq meel ka raadiya dad baa ka dhigtay oo iska dul fadhiistay. marka waan fiiri doonaa inay ka dhigtaan ma xaq bay u leeyihin, sax miya mise waa qalad. waxaan sheegi doonaa insha allahu inay khayraad fara badan isbaara ku noqdeen, oo khayraad badan la fulin waayey. waxbaan ka taaban doonaa insha allah. waxaan sheegi doonaa qofkii arka telefishinka inuu yahay gadiya bedela kuwi baa ku jira kuwi bedela. subxaan allah. anaga telefishin ma u yaallaba, laakiin dadka u yaallaan ka arkay dad badan waa isoo sheegeen, anigoo iska tuubaranaasa dhigayo. ta afaraad inay miithaal xun waadihi u noqdeen. waxbaan ka taaban doonaa insha allah. qof muslimka ay miithaal xun noqon kara misamaya, waxbaan ka sheegi doonaa insha allah. number 5 dad badan oo xayeysiis iyo ku qabay dii alla ku leeyahay business fara badan ku qabay telefishinada dhib bay ka sheeganayaan. waxay leeyihiin dii alla ku ron yahay dhib baa naga haysta, wixii xayeysiis iyo duu iyo khayraad aan ku qabnay meeshii ma isu gooyay dheheen. number 6 dahab raqiis ah meelaha laga sheegay waa taaban doonaa dahab raqiis ah maxaa laga wadaa insha allah. number 7 waxaa ku ah waxaa in badan loogu soo gambadaa dadka lacagta looga daldashaa masaajid. maxaa masaajida? masaajidkee bay tahay in lacag lagu baxsho, kee bay tahay in la dumiyo. masaajid in la dumiyaa waadihii sheegeen, masaajid ilahay baa la duminaya maya, masaajid ilahay la dumimayo, laakiin masaajid in la dumiyo ay tahay jirta. anagoo masaajid reer la dhihi mayno, laakiin waxaan dhahnaa inaan sheegno shuruudaha uu leeyahay masaajid in la dumiyo ay tahay. masaajid waxaa jirta aan magaca masaajid u qalminin, ummadiina lagu beerlaxawsaday, lacagna looga dhameeyey, naftana loogu keenay, kuwo xalaal ah oo nadiif ahaana isbaara u noqday. insha allah waxbaan ka taaban doonaa. marka haddaan dib ugu laabto qodobka koobaad oo ah dad baa ka dhigtay shaqo. ilaahay subxaanahu watacaala waxaan leenahay ajra umuura alxayaati cala alasbaab. ilaahay subxaanahu watacaala nolosha isagoo markuu qadaray bacda mashii'atihi wa idnihi wuxuu u sameeyey sababu khabari socdaan. fajacala dukhuula aljannati bisababi camali saalix, in qofku janno galo isagoo ilaahay dhihi kara dadka ku dareera, haddana waxaa laga dhigay qof in camal saalix la yimaado, camal fiican samaysaa looga dhig, waa shardi looga dhig. waxay soo shaqaysto, soo xajiyo, soo dukado. wa dukhuula annaari bisababi camali alfaasid, qof inuu naar galana waxaa sabab u noqonaya inuu waxun ku dhaco. ilaah hamaan galnay, ilah baa janno warsayna subxana watacaala. inuu waxun la yimaado balaayo qaso baa sabab looga dhig. qof soo saalix oo wanaagsan, qofna ilahay qofna ma dulmiyo subxana watacaala. waa gart wa xusuula alwaladi binnikaaxi, inuu ilmo dhalana waxa lay guurso. waxay dhahaan soomaalidu ilaahow guursamaya carruur sii, ilahay waa awooda kaamase yeelo.
shaqaysan mayee ibilna waa awooda lahayn kaa yeeli maya dhehen ha lakin shaqadii baa kala fiican okay in qofku gaajadii iyo oon ka tagaana oo uu baahidii iyo dee oonkiina waxa leeyahay waxna cun waxna cab iyo intaasoo tira badan hawla badan haasaa loo sameeyey waa gartay ومنها الرزق فإن الله تعالى سبحانه وتعالى أمر عباده بالسعي في طلبه إلهي وحو فري أمضى إني أشقيستان أرزاق أي أردان سماها وشرع اللهم الأسباب صابنا ولو سمي سبب تصل من حرارة ما نجعل يسيوح لي رداء الكورة هاي مالها وانا سنخ شقيسة وحو وانا سنقب صدا وحو وانا سنعنا وشيدنا إن شاء الله الله wuxuu ka reeb dadka inay caajis iyo kasl iyo deel ku ran yahay shaqo la'aan iyo ma iska saxsaxdaan hore dareera iyo cagta maala ha sama waxa ka loo diiday in xoolay ku raadshaan waji xaraam ah waji aan fiicnayn hatta muji karaahiya midna lama ogola qofku inuu xoolaha iyo arsaaq u dalba si wanaagsan Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha dhalulan ilaahi baqdo dhulka idin leeliyay idin sakhiray famshu fi manakibiha wa kullu min rizqi isaga dul dareero arsaaq dalba aduu deel ku ran yahay biratuma noqo aduu bayrood noqo aduu deel ku ran macallin quraan dhigan noqo shaqada tiraas laga bad haduu meel aan ku ord ha qofna meel fariisa lama dhig tusaale ahaan markii ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka hadlay salaadaha hada jumcada laga soo hadlay salaad sama soo hoosgalaysa baan wixii fayda qudiyati salaatu fantashuru fil ard wada saad ka baxdaan hasafa fariisanayna tusbax la fadhinine arada ilaahay gaa ha kalo barta fadhinahay aan leeyahay siyaasad soo gura ma jirto waxaas ha fantashuru fil ard waxa ay sameeyay wabtagu min fadlillahi ilaahay dheeris dalba ha arzaaq alla iyo wixii ilaahay adduunka u dhigay waxa doonto ha ilaahay subhanahu wa ta'ala rusushu muxuu ku yiri يا أيها الرسول كلوا من الطيبات واعملوا صالحا والنبي ياش الله صادر رسول الله صادر ديال كوراني هاي عرضها خشقيني ودين تفافينها او كتاب سودغ هي اسكا فريس dadka baryan aan wada hinin cunta falad hoo goraan wada hinin ha كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وهو انا سنه سي ku imaanayna sheegi doona insha Allah Allah la amal wasana la imaado wax wana sanacuna sidoo kale Allah subhanahu wa ta'ala mu'miniinta ya ayyuhal ladina aamanu kulu min الطيبات ها كلوا من طيبات ما رزقناكم وحنا كوبي الله يكون رزقني وحوذا في عنا ها نبي صلى الله عليه وسلم كان داود عليه السلام لا يأكل إلا من عمل يديه نبي الله داود عليه السلام معه تيرنين إلا واحد عمل شعر سال معه هو وحمالين شر ها ابن حجر وحليه هاي سيدا موقعنا يساعي و عسكعد وحليه هاي وحو أهاب ليه هاي إنه دروع سمين شري يبريه إلهي سبحانه وتعالى وليليه ها هو سمين شري كواس قرحين شري هجين شري وكبعد وقدي شري ولا يأكلوا إلا من ثمن ذلك والعيت وحنا معه شري تصوف خشعة شري سيدو خطية لو إنه كم ها بقر وين بقر بقى على الله سبحانه وتعالى شدنا ملكه ها بقر بقى ها خدنا واشقي سنهي وحملاني نبي الله داود عليه السلام محمد هاي أنبياء النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن خد يسنوا أو ديس رعم أولئك الذين هداهم الله فبهداهم مقتدي على الله سبحانه وتعالى وكواس محمد يكون أنا هنوني وضد تصنيع صح ذاه خد النبي الله أنا ويح النبي على فروان صلى الله عليه وسلم حديث ورني أبو هريرة رضي الله عنه حلية هاي النبي صلى الله عليه وسلم كان زكريا نجارا نبي زكريا نجار بقى مركع ورواه مسلم سيوتو وحولنا يا إنه ليه هاي أفضل ما أكله الرجل من عمل يديه قف وحا وعنا وحا وفضل بدن وحا يتحي وحا وقعين خش عقيس حديثنا وحا قصة مع علماء ليهن إنه قف يبنان تحي إنه صانع نقضه وح سميسته نجارة يدي فصلنا يغنى سنة صنعهين مد هذي ساعد على كورة يقف مروءة شرفتيس وقف ولا كل جارم هاني أسوأ حمارة يهاصل يجي منه أكينين ساعة سامح الله وفر سبحانه وتعالى إن شقيستان قف كنا وكوقنا وح الله سيو وقون داي
uusan u indha taaginin dadka kale xoolahooda dadka rajabku inaan saas sii dhihinin saasaa la isfaray nabigu alayhi sallallahu alayhi wasallam qad aflaxa waxaa liibaanay man aslama warusiqa kafaafan qofkii muslim noqday kafaafna lagu irsaaqay kafaaf maxay culimadu dhahaan waxaa lagu fasiray waxaa la dhahaa bay dhaheen wax ku filan asaga quud asaga ku filan oon kana badnayn oo uusan fadfaad ku noqono xagga ugu kala cararin uusan hoos jirinoo wixiisi aan ka yarayn waxa asaga ku filan oo mutawasit ah ku nool asaga ku noolaado waqanaahu allahu bima aataahu intaas kaliya maahane liibaanta nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay haddana ilaahay ku qanciyey waxa uu siiyey oo qanaaco helay oo indhaha taagtaagina meelaha ku orordinin marka qofka muslimkaahi waxaa laga rabaa inuu noqdo qof mithaal wanaagsan ummadda u ah shiikha iyo mucallimka iyo inuu qof shaqaysanaya meelahaas ku ordaya waxaa igu soo dhacaya nin soomaaliya joogi jiray baa waxa la sheegay shaqooyin badan buu qaban jiray qur-aanku dhigi jiray gabdhahana waa meherin jiray xamaalina waa ahaa xoolahana waa qali jiray haddii aan la kuran yahay xamaali u ahaa xooluhu qali jiray qur-aanna waa dhigi jiray gabdhahana waa meherin jiray haddii aan la kuran yahay haduu hawlo saas badan buu qaban jiray dalaalna waa ahaa 5 marka nin baa inta arkay buu la yaabay dheheen hada waa nin sheekhu marada dhexda u joogto oo ordaya markaasoo gabay ku tirshay wuxuu yidhi hadduu diinta ku raadsho marna duuta ku qaado marna suuqa dalaala marna xoolo dibaaxo irsiga isku duubiya wadaadka ma dabartaan bi wadaadii hore saas u ordi jireen ma fariisan inuu yiraahdo magana lay ama soo gura soo dhiiba dhaho oo haddana uu gadaal usii tuuro arrin aad u dhib badan bay ahayd marka in camal laga dhigto waxaan shaqo laga dhigto oo qof uu baryaha shaqo ka dhigto waa arrin aad u xun wey qof muslim waxaa la faray inuu hore u shaqaysto isagoo u ordo waataan soo marnay isbuucan aan ka hadalnay nabiga sallallahu alayhi wasallam dad qofka ka tagi waaya inuu dadka xoolaha qof dadka warsanaya inuu xoolaha takasuran inuu badsado daldalaya dhuxul naaru qaadanaya ama ha badsado ama ha yaraysto dhuxul naaru qaadanaya qof dadka xoolaha kaga qaada inuu badsado arrimahan hadda aan haysano oo aan ku dheganahay oo aan fidinayno oo leenahay wadada ka daaya masaakiinta aad jafaalinaysaan wadada ka daaya waxaan wax u sax ma ahane telefiinta usoo fariisto cumadii gar usoo qaato aan leeyahay isoo hinayo ilaahay ka baqa yaa 500 ku deeqay yaa masaajid intaas ka gatay yaa fuusa biyaa baxshay horaan u sheegay waa ku soo celinaya sheekh meeqa bixisay adigu wax ila darti ka tahay meeqa bixisay $100 ku deeqday adu waa inaad iska bilowtay hadaanu intaasan baxshay min soo saartaa laakiin ana bixir mayo adna waan ka qaadi hadana waa isku ka oohin waxaan ka dhigayaa ilaahay dartiis waa khiyaanad cudma weeyaan waa ina cadaysaa sheegtaa tira waxaan anu ma shiilan lama bixin mana bixinayo laakiin adaan ka qaadaya markaan ka qaadana 50 ama 20 baan qaadanaya telefishinka dambeeyana 50 baan siinaya wixii soo haram siin gaarsiin doona laakiin qof gacan sharalan tahay ama mid intaas maqan tahay ama mid afu jabay inta la keenay dhahdo yaa ku sadaqaystay ilaahay dartiis muujeeda miskiinkaas waa inaan shirin ka baaqan wan bini maba ku ceebaynay wallahi aan ka hadalnay haday waxay soo qaaday intay gudbiyaan geeyaan waxaan dhihi lahayn uma soo baxday way laakiin wax suuqa yaalay waxa xadiis baa waxa macnihiisu ahaa waxa tihiin hadii aan ku shuhada Allah fi al-ard marxaati ummadda dhulkaas aan dhigay marka dadku baal iyo qurafa isku raaci mayaan waaridana waxyaalaha ka taagan arrinta noocaasi daqoq loo gudbo isbaaray noqoto isbaaro waxay u noqotay waad ogtiin Soomaaliya meel badan abaaro iyo waxa ka dhacay duufaano iyo meeshii hadda bari ka dhacay deela kuuraya duufaan ku soo fakatay iyo biyo wixii anoo waadaha meelaha ku orodnay waa is warsanay wartay fiina ma tagna waxa isla garanay tabii loo tagay maanta nambay mid nimano xiran oo dad xirteen iyo mid aad tagtay waxa ka soo galayna isceebaysan maahan على هالتلفزيون أنا ما يحتاج شيء بايري فري بعد كوسينا يا دور ساعة مثلا الله هضلا تلفزيون صار وهري وكمدي هاي أدبا ما علينا واحد ما في عم هاي لكن أنا والله ما عندنا ما كان عندنا واحد هو قاعد سين ذاك إنه وش هجان لما تجربته كان غير قاعدان لكن كان ما دهين ما حد عاي واحد ده ما كبرني إنه ذاك كل عملنا مودان هو يتاجن
شيء تلفزيون كهلين وهي دبعتها جرتا دبعتها صدعضي لعيت مسايدة الوار مسايدة الجيم مسايدة الوار رمي يعني ما له جوار ويدسو تري محن خصوصا إن لعيت عن صدقة الله بحضرهم وبهين وعن كوير ملا خيرات كه الوار زم مسايدة كتي جي أي ما ودي وقتنا إمام لعيت مسايد ك صدقة بحينها يقول أما عدا قفك الله قايلنا هيو أو مات الوار صورة جرنيت تلفون ودر يقف مسؤول كاعي ما له قبل يوم العاب وذي وحن كويري محاق وضع واحد هن قف عن كوارنا ويب سايت من عود ديرنا وحن كويري قف ويب سايت تلفون أمينني قف ميت شو وع خصوصا ودي بالعيت مكاس سيد وياله العيت قف قاضي ماشي مسكين ماشي يلا فرتو خسارة ها لكن العيت وصدروا العاب تلفون كوقرنا ويب سايت كوقري وغير مسؤول نموي ما أنت وهذا غير أمين الأدريس فردية بالتلفون قالوا قرب بس أمين عليه وهو هنا جعان آمنة كل جعان آمنة سيوجد بس مسكين كانوا هاي جاران أنت هتنخلينا أوكي ما صباحي صباحي وحمرت كده ما هذا هيسا ودموت إنه أنكر تو درت قصة الله صاحبنا هايو أول صدق سنة صوفيا لها طالع قدام لها واحد ده وحشي وداد وحسيبه خدم يسد وعدي وداد وحسيبه خدم يسد وبين رتقوا وعدنا ويدور كنت أشاكم كتابها وآخرين حنا كما قعتان هذا هاي وحكي سوق هذا وح بحشان عندنا اللي جود يدي ما ينوي صلاة شقفك ما أخذ لا وحوك يعني وحوك يعني يدي حقات لكن أظن أساس في الصوت شيخ وتذكر سيارة كان ده أصلا غدر يا معها لكن عندي قف هديت كوك يعني ما تكقى عن كتاب عيب معه إحنا وحملنا معه بس شخص سيارة ولا وجين كلام واحد ما تعمل لكن واحد كهلينا واحد هاي أنت الشيخ استاجوا مساعدك هكذا عن محاضرات شو وانيو ده بدو شركة صوت كان ninkii saasa mahmaadi ka soo baxday ba maanta waxay run ku noqotay waadii laga rabay inay dadka badbaadiyaan inay dadka runta u sheegaan inay dadka ka soo celshaan meeshaas xun markaas dad badan waxay ka cararayaan marka akaan telefishin wada fadhiyaba ma maxaa la jeedinayaa hadduu rabo inuu weydiiyo ilaha keena dami badal maxay kala isbaaro noqotay tabarucaad wanaagsan oo si hadda soo sheegay abaarihi amal loo gurban lahaa masaajid run ah oo meelo dhibaato ka jirto masaajid aan ka jirto loogu urur lahaa bay isbaaro noqdeen oo leeyahay yaa kala yaqaana hadee halkaas sheekhaal baa fadhiya kana sheekhaal baa ka soo hadlaya hadu labada wada gardeen waxa garanays oo ciyaado kii run sheegay kii shala qaatay miya ma kan maanta sida ma ka bari maanta waxa weeye wax kasta wax biyay leeyihiin wixii waa la baash waxa way fiicnaan jireen masaajid baa lagu dhisay dad baa loogu gurmaday laakiin meel xun baa la marshay اوكي قابا صدحات قف الله قف تلفزيون فرع وادي هكذا بدل كوي ما كنت هنا كوي إنا لله وإنا إليه راجعون قرميان نقناي قرمي ويادوه نقدين وحلا عرضه هيا لو عرض تري هم بيكاش يا حاجه الله عرض ما مسايدك ادي اسيا قيلك صغير تكورن بي ما هين قف مسلم كانه تصالح النقض انه مثال انه النقض ما يصالح هين waxay ahayd wadaadada meesha lagu arko in iyaga la aamino waxay ahayd in iyaga wax loo dhiibto waxay ahayd in warkooda la dhageysto waxay in nasiixada laga qaato xaqiiqatan reero badan dib baa ka haysta dhowr meel aan tagay anoo hore soo sheegay sidii ma yaalo laakiin meelo badan oo tago dadka waa ku dhex jira xafadaha tagay oo deeq ku leeyahay meelo muddo isku timaado markay soo galaan ولا بدلا كوي داي كوي أقول بدلا واحد داعي حتى إن السجون شيخ يعني ما هو خير وصوّدا مسوى كي توكسنا هاي إن النقطة تصارح الموضوع نقطتين الذنب وين بكون سوّا واحد عندنا تصارح خير نقطة سهرة بقى ويروح لها هاي إن عاد كوسي إن تكتو كوسي إن جناتي حمامته واحد كفي على خصوصا لعبته وتلاقي طبط إلى الله قالت كوال عديستا حتى قولين كان ماركتين قالوا عندين تشوف كل هين هذا قالت خدعه برضه تلميذ فريستا بيقول أنا قالت أنا سميه أدو تشجعين وسع السنة تشجع أدو هي هدو مجع لها مجلس حصب وليها وحول قالت كسوين وقد عي وروح علينا إنه ولادتي ميربا وقد عدين صدقتي لا أرون لها إسبارك نقطة ويح بحين يصير واحد قال يصير واحد معها si waxaan u kala cadaadaan joojiye waxaan makarafoonka qabsada anoo hebel noo hadda cidna magacayn mayno anoo hebel sheekh hebel waxaas qaadi jiray tubtu ila allah idin faraan ka qaaday wixii
laakiinse hadday dhici weydo waxaa dhacaysa in waxaana sii bataan in adiguna waxba aada helinin kuwa wax heli lahaan wixii ay waayaan. okay qodobka afraad waxaan sheegay inaan dhahay tusaale xun bay noqdeen. tusaale xun bay noqdeen waxaan ka waday waxay ahayd shala maanta waxaa jiray nimankaas walaalihiin ahay oo soofiyada khayr laha siiyo markaan soofi leeyahay soo jira waa hilmaa arrintaas. soofiya oo dhan ma soofiya way kala fiican yihiin. kuwa awda leeyahay waxa kuwa dadka ka qaraabto qabraha ciida ka qaato meelahaas fadhiya, laakiin kuwan zuhdiga iyo kitaab masaajid isaga jiro ilaahay isaga caabudo waxaas ma haysta aniga. nimankaan masaajid isaga jiro iska wacdiyo iska wardiyo iska dukanaya nimankaas ma ku dhagani waxaan haysanaa nimankaan intay qabraha dul fadhiistaan dadka xoolaha keenada ku hayo qabraha xoolaha ku dul qasha ummadana siyaartay soo ka goranay nimankaasaan haysta. nimankaasaan bari shaa ku dhaganaan jirnay. nimankaan tusaalahan waxay noogu noqdeen wadaadadii noocaas ayaan ka qayli jirnay oo ka digaynay nala simeen waa naga hoos mariyeenba. waxaa la leeyahay waxaa ka digi jirteen baa ku dhacdeen. waxaana ahayd waatuu nabi alla ka mid ah u dhahayay ma doonayo inaan idin dabamareeyo waxa aan idinka nahyinahay. asnaamta ka haroy buu ku yidhi ilaahay kaliya caabuda halal la imaada. wamaa uriidu an ukhaalifakum ilaa ma anhaakum canhu. waxa aan idinka nahyinahayo inaad idin dameeno aan aadana anu ma doonayo ku yidhi asnaamta ka soo tago ilaahay kaliya caabuda. alla kaliya caabuda. sidoo kaleeto culammadu waxay dhahaan waa ninka gabadha tiri tu dhahayay haddaad shay reebto gabadhii muxuu ahaa xusuusiya inaad xumaan reebtid wata'ti milahu adna wixii camal la timaado waxaa la tiri ka hara waxaan adna wixii kalaa samaynaysaa wuxuu leeyahay caarun calayk idaa facalta cadiimu ceeb bay kugu tahay inaad wixii adu la timaado. gabadhii qaybta hore waa hilmaamay. marka inaad dadkii tirahdid war nimankaasa dadka dhaca xirsiya dadka xoola uga qaataan qabuura dadka dusha ugu yeeraan deala kureeya qofka dhintay bay wax ka qaataan meesha laga dhintay dhahaan wallahi baan qofka la duugay la afka cidka bixin la qalo wixii saasa neef bay qalan jireen. kuwaan waxaa yidhi akoomaday mariyeen bay dheheen ayagoo duco usoo gamaraya dadka ha loo duceeyo ilaahay subxaana wa tacala waa qof kastoo muslima iyo qof kastoo dan leh danta lahu afiyo khayra. ilaahay qof kastoo dhibaato qaba dhibaataha ka qaadan leen. ilaahay qof kastoo baahan baahida ha daboolaan inay xoolahaasi xoola uga qaadan mayno. maanta dhan ducee salaada dhexdeeda u ducee banaankeeda u ducee masaajidka u ducee shinan lacagaa lagama rabo. aan kuu duceeya keen soo daldal adiguna ha ku dalbin intaad lacag bixiso sadaqa inta bixiso ducaa ku dalbin. haddii kale ducadaad waad gadata sadaqadaadaas sadaqada la bax saa hore u sheegnay ayada ilaahay kugu dhowraya subxaana wa tacaala. qodobka shanaad dad badan baa telefishinna waxay ku qabeen telefishin lacag kale ay heleen ba waxa la yiraahdaa telefishin waxay u furan yihiin. telefishin waa business xayeysiis iyo waxa lagu bixin jiray deel ku ran yahay warar iyo dadku waxay u fiirsadaan. hadda dadku dad baa waxay ka qeynayaan ganacsi haystay xayeysiinta nadi waxa ma heshay dhehen sababtu maxay tahay waxay wax fiirsada walaalahay markii la furo kiiba bedel baa leeyahay dhehen. marka dad badan xayeysiin lahaa iyo business aad bay uga cabanayaan. dadka cuna qabatayna leena madaka masaakiinta garab raratada ahaa inaa isbaara u dhigataan ma aha oo xayeysiintoodii waxoodii aad ka hor istaagtaan iyo warar iyo akhbaaraad la kala qaadan lahaa oo weli adoo shiikh ahaa. qodobka lixaad waxaan sheegay ma kusi dheeraan doono laakiin dahab raqiisaha la sheegay. maxaan ka waday maalin dhexaan oo telefishin program ku leh waxaad ka jeedinayaan tareen raacay. marka telefishinada soomaalidu badana UK meel bay ku yaalaan London meel kaasay ku yaalaan. marka anoo tareenkan sii saama nin wadaad sii raacnay oo tareenka ila dega tilmaam ku socdo wuxuu yidhi telefishinka hebel ma taqaanaa. markaas waan garanaya maxaa ka rabtay ma tusan kartaa waxaan tusanaa ku yidhi mid ku dhigan baa u socday hal bil bay ku yaalaa wax dhan. meeshii baan israacnay billinkii aan u soo dhaw sii sheekaysanay maxaa ka doonaysa wixii dahab raqiis ah oo lagu qabtay yaboohinta lagu qabtay baa meesha lagu gadaya kasoo gadanaya. marka anaa waxaa isweydiiyey dahabka haddii xablihii ku laga soo qaadiyey ma auctionka la geeyo yaa ku darsaday la dhaho naadisho dahab baan haynaa lagu soo aruurshay waxaas iyo waxaas waxaan rabnaa in lacagta ugu badan qofka bixin kara laga gato ama suuq wanaag suuq daahma la geeyo moogtahay waxay ka soo haray waa suuq madooba dhigi jiray suuq soo jisooyeen. marka waxay ahayd dahabkii gabadha la baxday oo ilaahay dartii ay la baxday in suuqa sicirkiisa lagu gado oo ummadda loo hordhigo
in habartay lagu gadana ma ahayn in xoogaa lacag raqis lagu gadana ma ahayn in qof firi isaga qaatana ma ahayn in telefishinka la siiyana ma ahayn oo telefishin intuu u qaato asagoo dee la kuran yahay lacagtiisii uu beri sii xaraashto waa qalad gabadhan dahabkan lacag bay kasoo bixisa qaali ah xataa in loo sheegay la dhaho gabar yahay dahabkaa bixinaysid lacag ahaan noo sii anagoo dii karta beri lacag raqis aan ku geli doonaa laba jeer bay khasaartay gabadhan dahabkiina way bixisay lacag raqiis oo lacagteedii aan ahayn bakasna waa lagu gaday saddex meeshii ay usoo gashana ma gaarinin ilaah wana khasaarin ha waxaas dhan yaa mas-uulka ah sheikhi bartaa fadhiyo la aamina mas-uulka ah oo dhahayay laa ilaaha illa ciidiisu garaaciyo aayadaha qur-aanka aayadaha qorta qabanaya waxbaan ka taaban doonaa qaybta u dambaysa toddobaad ma dhamaystiri doono waqtigu yarada ka baqaya insha allahu waxaa badanaa wax lagu qaadaa wax lagu aruurshaa masaajidu tira badanaa weliba yurub iyo america meela waxbay jira yurub ku yaalo masaajida lahayn dhawaad ka taagan tahay u k waxa masaajid loo qaadayo waad yaabaysa u k ama ingiriiska saa u taqaanaan hadda tusaalayaal baan siinaya horaan u sheegay inaan sheegi doono masaajid in la dunya ay tahay jirta nabiga sal alla ly slam xilliguu joogay masaajidka madiina u dhisnaa ninbaa masaajid magaalkaan ka dhisay ay ugu dan leeyihiin inay ku dacfaruuraan oo muslimiin ku kala jabshaan masaajid nabiga sal ly slam dadka uga leexshaan waxaa loo baxshay masjidu diraar qur-aanka lagu sheegay masjidka dhibaatada iyo muslimku dhibaataynaya diintu dhibaataynaya masaajidku kala burinaya muslimku kala jebinaya masaajidka marka aan leeyahay hala duusha waa masaajidka loo dhisay reer hebel waa masaajidka loo dhisay in midkaas lagu dacfaruuro waa masaajidka loo dhisay in muslimiinta lagu kala jabsho waa masaajidka loo dhisay khilaafka way badan yihiin cidna magacaayi mayo laakiin tusaale kale aan siinaya tuulo ku taalla u k waa tuulo yariisa dadka degan muslimiinta degan waa dhowr kun laakiin badankoodu waa bakistaan iyo hindi iyo bangladesh iyo turkish soomaalida degan haddii lasoo tiro koobo ma dhammaanay dhowr boqol dhan yihiin masaajidada badanha wadamadan ka dhisanna waxay ku bilowda wax leeyahay community ku bilowda community waxa weeye meelaha dadku isugu yimaadaan oo xafiisyada dadka laga caawiyo oo halaya dad badan community wax soconay wax dhageystaan hadhow waxaan dib ka dhageystaan marka communitygaas uu ku bilowdo markay bakistaan community samaystaan markay muslim yihiin waa sii tadawuraan horumar uu sii sameeyaa ha wuu sii koraa wuxuu noqdaa haddii ala hore masaajid ee dadka muslimiin soomaalida saas camal wey meelaha isugu yimaadaan communityyaal iyo charity waxbay samaystaan ka bacdi intuu sii sameeyo haddii ala kuran yahay progress ama haddii ala kuran yahay tadawur buu masaajid isku bedelaa hadhow marka maxaa asalkii ah meesha waa community masaajid soomaalida isugu maalaysa ama bakistaanta isugu maalaysa ama hindidii qoladay lahayd muslim kale wuu yimaadaa laakiin ma badna tusaale ahaan masaajida soomaalida hadda ay ku leeyihiin london iyo yurub ku leeyihiin dadka ku dukada oo ajaanibta dad yar weeyaan masaajid soomaalida ugu badan tuulo ku taal u k marka oo dadka degan dhowrka muslimka degan aad u yar yahay soomaalida dhowr boqol ay yihiin baa masaajid laga dhis hadda waa isdhaqaanaa nawiye reer qarsax iyo reer quraac iyo reer jeerin baan kala leenahay baa la isku qabsaday looma dhammaa layidhi haye maxaa dhici doona wuu sarrifmay meesha laba koox baa noqday koox baa kooxda qaniintay waxay dhaheen wari ayaa waa dhisteen annagoo mid dhisano waxay ka dhisanaa magaalaan gelaynaa magaalada maxaan ka doonaynaa mid kasoo horjeeday hadda ilaahay baan ku dhaartay haddaan badiyo waan tagay cagahay ku tegay haddaan badsho 100 tilaaba udhexaysa saa qiyaasta waa qaldami karaa qiyaasaan laakiin waxaas leeyahay badi ka yarayne labada masaajid 100 tilaaba udhexaysa gurina uma dhexeeyo derbina uma dhexeeyo laamina uma dhexeeyo masaajida barta laga taagay midkii kasoo bay kaleysay meesha markaasaa sheekh soo fadhiistay alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin masaajid baan helnay baytullaahi baan rabnay lacagna war baytullaahi ma ahana waa masjid diraar waa baytu shaydaan meeshaan kaasuu ku duminayaa baytullaahi lacagta loo arushay kan ka horreeyey oo kasoo caroodu ku duminayaa ma aha marka baytullaahi ma noqonayo waa in la dunshaa ha waa in la dumiyaa sida culammadu ay taqriirinaya waxay leeyihin masaajidkaasuu shaydaan ku yaakani wuxuu jebinayaa waxdadii muslimiintu kala jebinaya waa in isaga meesha laga ceshaa waxay kaloo dhahaan ma buniya calal baadil faha baadilun ma inuu sii nagaada u malayseen kii waa taagan yahay kii kalena waa taagan yahay laakiin kiiba haddaan la isku khilaafay xagga u dareeray mid kaleeto mid xooga meel xooga igto isna qabsaday waa tuulada dhahaynay muslimka degani dhowr kun weeye soomaalida 200 wey mid kale u qabsaday asna markaasuu naadaqaya asna
تصدقوا تصدق بركة إله بارك الله فيكم الله يبارك يا مساعدك ورمرك دي واحد ونوشة إن عاد واحد كلا جلسوا مسوي واحد ونوشة إن عاد واحد يستوى بناء نقطة علماء واحد مساعد واحد على حاطط مساعدة وإن لواد يستوى لله سبحانه وتعالى إله ذاتي لواد يسويه markii la masaajid la dhaxana wuxuu galaya waqaf adiga gacantaada uu ka baxay xoolaha maal ilaahay lamana kala xigo kaliya maamul ahaan iyo dadka xumeeyeen ba ka cidin kartaa ma aha leexsanaye ana iskala iyo kan leexa adigu iyo hada soo dhawaanay waa laga tagay ma joogto hawsh waa baytullah maradu baytullah galo waqaf buu galay ha yaa wax ka qaadan kara iyo wax ka cuni kara waa gali doonay iyo masuud ya qaadiya لكن أدان أنا عن كوايا ضمت عن كلية هاي أنا كوايو والمعارضية ما كان معارضة معارض في أفهم جاي والدمينية دمنت ده نقول أنا متكلم هجس للصوم أو ماذا خلي يحصلون ومثل درار بنغنية وماذا أديك ميو من سعيد ده نوع عسينا واحد إصبارك ونقدين ما بدنا معنا جنبه قال ضرر يقول لي شيخ ما عندكم يدي بس أنا ما بدنا معنا مية ها بعد بداية نادينا هي 2010 إلى هذول النادينية خلاص بقى ما اسكيري كنت محاسب ما شيرا قرينا علي ما دي كره ودد انا خلدان waxaan naadinaya wixii anagu soo laabanaya ilaa magaca la wada garka wiil la wadaaga gaar waxaan ku yeeri waxaan filayaa in masaajid badan yihiin meelo kale to Europe iyo America iyo meelaha waxaan hayma loo ganaashaa telefishin Soomaaliduna badan UK ku yaalana base wax baan ku waa mujamalay ilaahay yafiis subhanahu wa ta'ala ilaahay naafiye hada ma difaaci kartid hadu kala difaacdu marka مساجد دي قار كودنا وحيقوم مقالة وطبعا ده هي وركة وحن في دونا قار سوالي قار هو مساجد هذا أي شيء أنا عايز كتير لكن واحد يقول ها إن مساجد قار كم إذا لا أروح شيء أفر بقولة كن لا هي أفرتكم جارتي ها أفرتكم كن أنت كان عاو ولا سويدية ولا يروح حتى عاو شو مساجد أنت سباق قولها هي شيخي تلفزيون إلي تلفزيون شيخ إلي ها هذا وعهن لا يوضع شغل يستوي عهن لو سلوه يهي نقطة أنت لكن وحي شيخي هي التلفزيون وصول دافويد التلفزيون بعض كواي كان هبلوها أي نحب بودا يعني ودي على كورونا هي مرات كنا صار كالغوط ومرنا محاولة بياخد دينا مرة ورا خبا حيان مرة شيخنا هذين هي التلفزيون عيارك فرن معه التلفزيون لعبه كفادي يعني ودي ميرات مرك وإني إلهي يبقى سبحانه وتعالى وإني كنت على جلان وحن إن آخرنا الحسابين دون وإني كنت على جلان واحد دهان ولا دوي على دعران والروح على ثان مسيح عن دونان وحن لغاية على إني صواب حان دد ونا يسوين الجيران تلفزيون النظيف هو حلال وشرف له ودتك عدي وحقاتنا وشجع أما ده لله دي لا تقول سمعنا هيك عليه وبعدين صار شيء تلفزيون زمان وهو ريه كم ده عدي ظروفته ده سمعنا مقاعد دوران إن شاء الله وشجع واجد طبعا أروح عندي عن بريء ونمر تقعد وحيدي ساعات مثلا الله إنساننا في سبيل الله العيط هو بحث عن العيار ما مكو هو الجلي لكن إني عديان بيحد وده هم العيب عن قضينا عنه همين التلفزيون ما انتجي محاضرة كلها كان قصاب بحي ما قال على يقضوا في واحد نبع كي رايف وشلو هذا كويه وعم كل الشيخ بريق مقاطمية نبع وير شغالة كمية ما يا شيخ بالله هذا ليه صار يسقى بحيابيل ليه صار يسقى بحشا مرات قارنا واحد صوّع حيح ما أعرف لك مسينا نيدا وحسيت شوف شو حتى تذكر يحيح بريها فرح بدل صوّع طبعا إلى كبقى هذا كهيا مرات كمان أنا فوق أصبي سد معها صدقة واحد تهاي قفكو واحد وكم مرمو وصو ديري سايم ربحه عن ظهر قينا قف واحد أصوبنا خصو حري وما على الروت السي بي رايو ظهر ما شيء من دبشرن نندب شري ضبنا شيء هلب كدونيس ها دنيرة أوجي سيل مك ما دول بوينه أدن دعقورة ما قلبي كرد اللعاية إن دار لنا بخوض أننا ياوي واحد لغاية بقى أفكر سلسلة سودها بكق عليه سيد لا عوا قلبي روحي سيد كل علني سن جننا ناقص عليه سيد المي كحرينهم واحد لغاية بقى إنه ويا المي توشم حاجة بحش ضد فانا بدأ يوك يكونوا أما أمريكا أما يوروب والله ما لاقاهم والله ولا قارما ضد كقاركودنا مرها إسعليس واحد غير بقول كي دراء ما يوصل قاعدين يبحثوا صدقوا إلا إن الشيخ أنا عاوز كسر لي
wuxuu ku leeyahay beerlaxaw soo jannadii naartii jannada indhahoodu keenay jannada naartii socoto marka dadka ma la dhaho waxaas wacdi ma la dhaho sadaqa ka qaad ma la dhaho nasiixa ma ahan dad bay ku dhacday inay xoogaa hayeen ba sidii loogu celinayay ay ilaahay dartii dheen wataasa baxsh haddii qofku intuu sadaqa baxsho sadaqadaas ay dhasho in ama ilmihiisa ku dhibaatoodaan ama asagu ku dhibaatoodana wax ma banaana mamnuuc weeyaan xoogaa baa ilmaha usoo qaaday shiikh baa igu yidhi kulli waa maxshay ilmihi cunaan bay waayeen aase dembila ah aase baa noqonaya ninkii igu riday waxaas dembi qayb buu qaadanaya oo sa caloosha iga soo riday marka waxaa ilahay loo baqa subxana watacaala ummadda yaana beer saxwin qofku inaad u naxari saad kan jira u naxariisanayso aad wuxu raadinaysa sheegaysid iyo naftaada aad wuxu qaadaysa aad ugu naxariisanayso qofkana waa inaad u naxariisataa nabiga sal lla alay slam qofku mu'min saxa ma noqonayo xataa yuxiba liakhiihi ma yuxibu linafsihi aw kama qaala ilaa uu naftiisa walaalkaa la jeclaatid waxaa naftaa la jeceshahay war ma jecli qofna inuu caloosha kaa soo rido war ma jecli qofna inuu bilmaha biilka isbaara kaa isbaaraha tira badan isbaaraha tira badanta dadka waa ogtahay rushdi baa waxaa lahaa jira rushdi waxay tahay qof inuu yaqaano meesha wax ku bixinayo meesha wax ku bixinaynin dadku rushdi iyo hanuun kama wada sina maskaxdooda inay wada dhamaystiran tahay kama wada sina inay tasarufka maalka ay si fiican u maamulaan dad waxay tiri waxaan aan maamuli aqoonin shirka uu haya maanta hadii lahada meesha ku ridaya berrina markuu ilmiha bahnaa buu leeyahay marka dadkii noocaas ahaa oo la rabo in loo naxariisto oo la rabo in la yidhaahdo haye waxay kaa dheeriya la bax inaad ma aha caloosha ka soo ridid ma aha inaad dadka masaakiinta oo dumarka wali gaar loo ataaday hablaha ka fiican ragga khayr allaha siiyo shan gabdhood shan sijaabi xisaar rabna anaa shiikh hadduu wax qabso shiikhu asagu wuxuu qabsay dahabku caawa qaabilsan yahay kana lacagtuu qaabilsan yahay anigu waxaan qaabilsanahay hadii ala ku ran yahay ayuuto waxaasi waa iska isbaara wey waada ku dheereeyay waqtiga inta bay ugu dhaafay waxaan ugu dambaynta dhahayaa masaajida noocaasa oo dadka looga dhigayo inay baytullaahi yihiin baytullaahi masaajidu way u badan yihiin laakiin markuu noqdo masaajidku masaajidkaa lagu isbaaraysanayo baytullah waa ka baxaya warka noo cadaadaa fiican masaajid midkaa lagu isbaaraysanayo markuu noqdo oo wadaad soo carooday uu dhisanayo masaajid alla waa ka baxay wuxuuna isku bedelaa masjidu diraar waxaan leenahay dad fara badan oo wadaadaha ka qayb galayaan oo sacabtumayaan war waxaan u sacabtumaysaa masaajidkaas isbaara ku yahay oo ayaa runta u sheegtaa tiraa sheekh waxaan ka joog haddii kalena ugu yaraan ka joog banaankaas ka mar dad wax ka qaban karinin nabi ilahi sal ly slam man ra'aa minkum munkaran falyuqayirhu biyadihi qofkii xumaan arkay gacanta hawla tago qofkii aan gacanta awoodinna fa bilisaani caraba ka sheego saada sheegayna camal acda ku hay yacda ka dheh haddaadan awoodinna qalbiga ka nac waxaad tidhahdaa waxaas nabiga sal ly slam wadalika adcafu liimaan taasaa ugu xun ugu liidata iimaanka inaan marka wadaadkii xafladiisa tago idhahdo baarak allahu fiika masaajid baa heshay war masaajid ma helin meesha isbaara dhigtay masaajid ma helin ninkaan marka ugu yaraan waa inaan xafladana teginin aanay dhahdaa aniga wax ka joog haddaan dhihi karina iska aamusan iska tago ilaa soomaalida moota reer qansax reer qurac weeyo beri leeyahay waasaas waa reer qansaxo masaajidka isbaaraga dhigta anna odayaasha ay soo weeraraya beri waxay leeyahay waryaa maxaa masaajidka reer kugu daray marka baytullahi waa ka baxaya masaajid reer isku bedelay masulahi waa ka baxaya isbaar isku bedelay baytullahi waa ka baxaya wuxuu noqday masaajid dee la kuwada dangaa lagu fushanayo masaajidka waa inuusan dan shaksi u shaqaynin waa inuu u shaqeeyaa caamatlmuslimiin iyo waa khaastiima qofkii dhibaato qaba waa laga taageeraya laakiin dadkaas u dhexeeya masaajidku aad baa umahadsantihiin waxaan leenahay ilaahi subxaana watacaala tawfiiq hana waafajiyo dadkaas walaalaheena oo waxaas faraha ku hayana wax leenahay ilahi waa tabadkeena subxaana watacaala annaga iyo ayagana ilahi subxana wataala waddada saxda hanagu dilo hanagu hanuunsho wajazaakum allahu khayran wabillahi tawfiiq aad baa umahadsantiin saa u dhegeysateen insha allah waa rajayn doonaa inaan isku nimaano xalaqadan midda ku xigta jazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum